السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaynu isla eegi doonaa madadaalada ama qosolka iyo xigmado ku saabsan. haddaba wakhtigan la joogo waxyaabo badan baa la qabtaa, wakhti badan baana la shaqeeyaa, qofkuna uu ku caajisaya hawshiisa haddaan madadaalo dhex gelin. haddaba daraasado la sameeyay ayaa wax lagu ogaaday dadkii yaraantooda farxadda soo qaatay iyo madadaalada iyo kuwii aan soo qaadan, waxaana faa'iido batay kuwii madadaalada soo qaatay. hadal kastoo aan dhahayno iyo ficil kastoo aan qabanayno waxa wacan inay diinteenna u cuskanno. haddaba xagee bay dhigtay diinteennu? haddaba xadiis ayaa nebiga laga soo wariyaa ay caayishii nebigu tartameen oo ay u kala dheereeyeen meel. haddaba wixii nebigu sameeyey ee aanu ku dhawaaqin waxaa la dhahaa sunna taqriiriya, inaan kaga dayanaana waa sunne. xitaa haddayna u fiirsanno filimaanta waxaa ku jira qaybo badan oo qosol ah siday dadku waxaan ugu soo jeestaan oo ay u dhegaystaan. haddaba soomaalida way soo maray rag badan oo madadaaliyayaal ah, barhkoodna ay dhinteen, barhkoodna ay nool yihiin. allah ha u naxariisto intaa dhimatee. madadaalada ama qosolku kaalin weyn bay ka qaadataa hawl kastoo adagoo la qabanayo, waanay fududaysaa. ninkani waa ninka madajeliyaasha Bollywood, magaciisuna waa Koofinde, waana dadka ugu shacabka badan xagga jilannimada. innagana waxaa inoola mid ah haddaynu Soomaali nahay Abwaan Sooraan, allah ha u naxariistee, oo wax badan u soo qabtay ummadda Soomaaliyeed ee muslimkaba. waxaad ku tidhaahdaa hadduu ku dhaho guriga inagee waxba samayn maayee, adna maqaaxi inagee waxba cuni maayee, meeshan waa lasla gogo'ayaa. maadada xisaabta waa necebahay, lacagtana waan jecelahay, waa caqliga Afrikaanka. haddaba kuwaas innaga maha waa qaar kale, waa kuwa kale meel hadiga. gabadhaad online iska barateen baa waxaad ku leedahay waan kuu xiisay, adigaan weli la kulmin gabadhaas, bar hadal balii sheegay maxaad u xiistay ma qoraalka farteeda. waxaa laga yaabaa inaad saaka u qortay saaxiibadda beebi subax wanaagsan, laakiin ogow waxaa suuragal ah inuu isna mid kale u soo qoray beebi xali macaan baad ahayd. ubaxa haddii ay cadceed qabato wuu dhintaa, sidoo kale dumarka haddii hadal xun lagu dhaho dhaawac ayaa soo gaadha. saaxiibada qaar agtaada ma soo istaagaan ilaa markay sawir kula gelayaan mooyaane. sariirtu waa meesha ugu khatarsan caalamka 99%, dadkuna way ku dhintaan halkaas. taloma dagaalkii Bederba. saaxiibkayow war saaxiibkayow, dad ogaan lahayd markaad maqan tahay waxaan kaa sheego, waxaad noqon lahayd mid la sheekaysta xayawaanka oo keliya. ninku wuxuu ku dhahaa gabadha wuxuu doono, gabadhana waxay ku samaysaa waxay doonto. qofka doona gabadh fiican oo qurux badan oo caqli badan waa mid raadinaya 3 gabdhood. xilliga ugu fiican lamaanu isfahmaan waa kadib da'da 50 jirka. ma jira maqliga awaday ku wada hadlaan. dumarku saxaafad ahaan waa habka ugu fudud ee warka loo gudbin karo. iska ilaali geesaha dibiga, qobobka dameerka iyo la dhoolla-cadinta dadka qaar kaaga tegi maayaan khalad gashay awgii, laakiin keliyata waxay sugayaan inaad khalad gasho kadibna ay kaa tagaan. iska qayil waad iska bixine, iska gurso waad iska furiye, iska dhal waad iska koriye, iska noolow jannadaad geliye. nolosha Soomaalidu waa daadax. haddii aad raadinayso qof noloshaada wax ka bedela, intaad muraayad qaadato isku eeg qofka kuu soo baxa ama kuu muuqda, qofkaasaa noloshaada wax ka bedelaya, kaasina waa adiga run ahaantii. nin gaadhi wata mooye ninka lama sheekaysto. waxaa sidaas tidhi gabadh xabad saabuna ku maydhata ilaa intay xabad qora ka leekaanayso oo simikaadh ah. aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.